maxaad ka taqaanaa basaaska ugu halista badnaa qarnigii 20aad nin isku qariyay magac Carabeed helena kalsoonida madaxda Suuriya wuxuuna ugu dambeyntii noqday la taliyaha madaxweynaha dalka Suuriya basaaska Israa'iil u dirsatay inuu si qarsoodi ah ugu dhex milmo dawladda Suuriya waxay muujinaysaa heerka sirdoonku uu gaaro si loo helo xuquuq muhiim ah inkastoo uu dhintay waxay sheekadiisii noqotay mid lagu barto dugsiyada sirdoonka caalamka waa idin salaam saaxiibayaal magacaygu waa Xaliimo Daawud inta gudaha u galin warbixinteena maanta waxaan ka codsanayaa inaad subscribe ii dhahdo janaalka laagtana aad ii saarto janaalkan waxaad ka helaysaa xogaha sirdoon dambiyada qarsoon iyo xogaha caalamka aan idin bilaawo markaan warbixinteena maanta warbixintan waxaan diiradda ku saarayaa nolosha iyo howlgalladii Elyon Cohen oo ahaa basaaskii ugu caansanaa taariikhda Israa'iil wuxuuna si qarsoodi ah ula shaqayn jiray hay'adda sirdoonka Mossad inta u dhaxaysay 1961 ilaa 1965 asaguna si weyn u saameeyay siyaasadda gudaha Suuriya Mossad waa hay'adda sirdoonka dibadda ee Israa'iil Elyon Cohen wuxuu ku dhashay magaalada Iskandariya ee dalka Masar sanadka markuu waa 1924 wuxuuna la soo barbaaray qoys Yahuud ah sanadkii 1957 wuxuu u guuray Israa'iil kadib markii xiisadaha siyaasadeed ee Masar ay sii xoogaysteen Mossad ayaa xiiseynayay xirfadaha Elyon Cohen kadib markii uu muujiyay aqoon ballaaran oo ku saabsan dhaqanka Carabta luqadda Carabiga iyo awoodda uu ku dhex milmi karo bulshada waxaana loo tababaray sidoo u noqon lahaa basaas heer sare ah intuu ku sugnaa Dimashq Elyon Cohen wuxuu ku guuleystay inuu la saaxiibo saraakiisha ugu sareysa ee militariga Suuriya wuxuuna si joogto ah gurigiisa u martiqaadi jiray madaxda siyaasadda iyo ciidamada halkaas uu ka heli jiray xuquuq muhiim ah oo ku saabsan qorshayaasha difaaca iyo dhaqaalaha dalka waxaa la yiraahdaa mararka qaar wuxuu la joogay saraakiisha Suuriya iyagoo qorsheynaya weeraro kamid ah xogaha ugu saameynta badnaa oo gudbiyo waxaa kamid ah meelaha ay ku yaalaan saldhigyada militariga ee ku teedsan buuraleyda Golan Heights sirtiisii ugu weyneed waxay ahayd in Israa'iil ay taqaan meelaha laga ilaaliyo xadka Golan Heights asagoona fududeeyay inay qabsato buuraleyda Golan sirdoonka Suuriya oo kaashanaya khubaro Ruush ah ayaa ogaaday calaamado muujinaya inuu jiro basaas ku dhex jiro Dimashq kadib howlgal raadraaca Elyon Cohen waxaa la xiray asagoo wali gudaha ugu jiro gudbinta xog sirdoon maxkamadeyntiisa waxay ka dhacday magaalada Dimashq isagoona lagu eedeeyay basaasnimo heer qaran ah warbaahinta Suuriya waxay ku tilmaamtay cadowga ugu weyn qaranka halka warbaahinta caalamka ay ku tilmaamtay basaaska ugu saameynta badnaa qarniyadii dambe May 1965 Elyon Cohen waxaa lagu fuliyay xukun dil ah iyadoo lagu daldalay fagaaraha dadweynaha ee Dimashq xukunka waxaa daawanayay kumanaan qof oo iskugu soo baxay waxaana lagu baahiyay telefishinka Suuriya dawladda Israa'iil waxay ku celcelisay codsiyo ah in lagu bedelo maxaabiis ama meedkiisa dib loo soo celiyo laakiin lama fulin codsigaas sheekadiisa ayaana noqotay mid lagu qoro buugaag badan iyadoo laga sameeyay filimaan iyo taxanayaal sirdoonka Israa'iil ayaana wali u arka mid kamid ah basaasiintii ugu guulaha badnaa abid ee u adeega dalkooda warbixintan waxay muujinaysaa heerka sirdoonku uu gaaro si loo helo xuquuq muhiim ah inkastoo uu dhintay waxay sheekadiisii noqotay mid lagu barto dugsiyada sirdoonka caalamka